halaag kugu dhici doona kun sano laga sheekayn doona kun sano ayaa laga sheekayn doonaa ee awooddaad ugu soo jabisay eed sheeganayso iyo guushaad sheeganayso hadda ayaa laga rabaa hadda inaad iskaga celiso oo iskaga ka ilaaliso dhulkay ku sii dhex joogto anigoon qashar ku ridin caasimadii cadowgayga qorigaan ridaano caasimadiisa toos u baabinayo gorowa toos u duqaynayo madaxtooyada laga guurayo madaxtooyadana baabiin awood loo yahay inuu baabiyo haddaad geli cirka haddaad ku dhuuman haddaad dhaafi haddayd ooyi haddaydan qixi idinka idin taalla halkaad awooddaad sheeganayso iyo xiniyahaad sheeganayso haddan lagaga badbaad baan kulana hadda iskaga kaa celi xiniyaha iyo guushaad sheeganaysay hadda lagaa rabaa in lagaa waayin laascaanood markay noqotana gacan biraan ku qabta anigoo buufin kara waxaa meesha ku jira oo aan xabad iga bixi karin awoodna aan ilahayn igaga baxaan madaxweyne maanta laba kaa doonaya laba ayaan kaa doonaya kow ciidankii inaad fasaxdoon dib dambaysaan u joojin ciidanka aanad ciidankaas Soomaaliland dib dambayso u joojin aakhira ka soo biya cabaan halka soo cadow galaw ka daba galayaani inaad hor istaagin assalaamu calaykum waxaan la hadlayaa waxaan ka salaamayaa waxa weeye reer Soomaaliland maanta si gaar ah waxaan la hadlayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne dalkaad adiga ka sareysaa ma jirto adiga ka sareysaa ma jirto halkaadna dhigto baan noolina halkaadna dhigto baan noolina madaxweyne annagoo xuduudda joognaa cadowgayguna awoodaan u lahayn dalkayga soo galo dalkayga awood ku soo galo aanu lahayn baadna tiri soo daaya war dad koodiba la shirayaan iyagoo hubkoodii waxoodii wataan soo deyn anigoo garoowe waxaana 40 kilomitir ahaan u jira baad tiri soo dhaweey ciidankii Puntland gudihii dalkeenu yimi anigoon qashar ku ridin caasimadii cadowgayga qorigaan ridaano caasimadiisa toos u baabinayo gorowa toos u duqaynayo madaxtooyada laga guurayo madaxtooyadana baabiin awood loo yahay inuu baabiyo halka ku jira danay baad iga soo kaxays laascaanood bay kantaan qashar ku ridin cadowgayga sugo cadowgaygu intuu soo dhaafay gudaha kala dagaalamay cadowgan horta Puntland gudaha kala dagaalamay ciidankeedii gudaha ku jira Soomaaliland laascaanood markay noqotana gacan biraan ku qabta anigoo buufin kara waxaa meesha ku jira oo aan xabad iga bixi karin awoodna aan ilahayn igaga baxaan baad haddana ilahayd ka daa han noqoto maanta waxaan halyeeyay ku waayay waa dhageysiga adiga ku dhageysanay ku ixtiraamay madaxweynuhu bulshada ku talanayo eega wataamaha dalka arixda laga jabiyay halka leena keenay og ciidankeena maanta og joogo han noqoto cadowgu rag buu naga dhex samaystay saraakiisha ciidanka ugu sarreysay intanin halgeeyay ee geesiye la beegsanayay Soomaaliland islaan suuqa joogtaa ka marxaatiya ragii meesha joogay saddex nin mooyaan inta kala been bari culus ayaan han noqoto horta madaxweyne maanta laba kaa doonaya laba ayaan kaa doonaya kow ciidankii inaad fasaxdoon dib dambaysaan u joojin ciidanka aanad ciidankaas Soomaaliland dib dambayso u joojin aakhira ka soo biya cabaan halka soo
عدو قلبك كده بقول يعني ناس فرس تاجن ودي وتوجن كومي داس وطلبات عدي هوشن لهاyd hawshan cidii lahayd ama tii laas caano dadka lagu laayay cidii ka jawaab weydeen magaalada mas'uulka ka hayd afartiin magaalada mas'uulka ahaa afartiin magaalada mas'uulka ka ahaa wara saabkii maayirkii taliyii sirdoonka taliyii bilayska afartaasiba maxkamadda soo taago soo horjoogta maxkamad kuwii ciidanka qaranka hogaanada u ahaa ee dhabarka ka jabiyay ee waxa hawsha maanta noocaasa keenay iyagna inaad maxkamad soo horjaajiso hebel iyo hebel iyo hebel baa loo garanayaa oo cad ciidanka qarankuna waa ka markhaati inta halkaa joogtay soo badbaaday haddaad weydiisana nin walba kuu sheegaya ninka bari culus tahaa waxaan ku leeyahay madaxweyne kuwii nooca ahaa inay maanta direeskii xidhnaadaan inay noolaadaan inay joogaan dibadda horta taasi adiga ay sharaf darro ku tahay annagana sharaf darro nagu tahay waxaan ka codsanaynaa inaad soo taajiso tiirka soo taajiso anigana allah ka yeele ciddii hawshaa shaqo ku lahayd inaad tiirka soo taajiso dambiilaha maxaa loogu habranayaa dambiile waa dambiile qabiil in dusha loo saaro de waa qalab waxaan ku leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel baa loo garanayaa ragga la shaqaynayay taas madaxweynaha halkaa ku dhaafaya ta kale bari culus baan la hadlaya waxaan leeyahay bari culus markaan anugu isla hadlayno iscanaanano haddaad moodeen baroor taa ma taqaanaa taa ma taqaanaan xiniyahan taa kaaga furanay eed iga cararaysa eed iga yacsi way ugu jiraan kuwa taa kaaga furtay kaaga furanay eed iga yacsi way ugu jiraan hana moodin inaad ugu jabisaan asjabiyadii inaad ugu jabiseen ha moodina mana jabin anigu mana jabi doono bas laakiin ana lugtas qabtay waxa adiga xaggaaga ka yimid ma aha xiniya iyo guul aad sheegan kartana ma aha kuwa aniga iga mid ah caada qaatayaala baa keenay sababena waan la xisaabtamaya danaystayaasha maxaan ku raday cadowga gacan saarka la yeeshay ee dhuuna qaataha iibsateen walla xisaabtamay ku taana goonaya midna iga badbaadi maayo idinka laakiin xiniyaan kuwa kaaga furtay weli way ugu jiraan adeer anagu dhimashaan taagan dhammaan barre Soomaaliland dhimasho baanu taagan taanu ciidan nahay taanu shacab nahay inaanu dhimanno baa naga go'an mar walba kaayaga dhintay allah naxariisto sharaf iyo karaamo leh waa geesti qaran waxaan ku leeyahay halaaga kugu dhici doona kun sano laga sheekayn doona kun sano ayaa laga sheekayn doonaa ee awooddaad ugu soo jabisay eed sheeganayso iyo guushaad sheeganayso hadda ayaa laga rabaa hadda inaad iskaga celiso iskaga ka ilaaliso dhulkay ku sii dhex joogto inaad dhulkay ku sii dhex joogto baa laga rabaa ayaan laga waaynin imiga yaan he laga waayin anagu ma calaacan laadeer waanu dhimanaayo kaliya dhimashaana nu taagan waxaan naga kinayay ee naga kin hor taagnaa madaxdeeda ahayd waxaan naga kin hor taagnaa madaxdeeda ahayd turaalaan lidifkay hor taagnaadii waa leedin turay ummad afka Soomaaliya ku hadashay inaan xasuuqno baladidina awoodan adeer leenahayna awoodan Soomaali u adeegsano mana jeclayn bas laakiin maanta idinka kalifay idinka ayaa kalifay libaaxna idinka dhariyay waan dhaarsanay hadaba dhulka hadaad gali cirka hadaad ku dhuuman hadaad dhaafi hadayd hadaydan qixi idinka idin taala halkaad awoodaad sheeganayso iyo xiniyahaad sheeganayso hadda nagaga badbaad baan kulana hadda iskaga ka celi xiniyaha iyo guushaad sheeganaysay hadda laga raba in laga wayn anigu way kan waan noolahay kaad ka fariisan weydeen eed ka ooyiseen ee ilaa alaan ragnada sheeganaysa maxaad halka ka timaada ragnada sheegtaan anigoo nool on goobtaba joogin
goobtaba anigoon joogin baad maalin walba waxa la soo taagantii bariya bulshada waanu dilnay tala same kasayd ka cabaadiyey ee saydin adugu cabaadasaan ee magaciisa madaxeeda kaga qoray ee aad ku seexataan aad ku soo toostaan baan anigu ciidanka qarankuna aniga iga sii wada daran anaa ugu liita dadka iga sii daran taasi waa taa halkaad ku badbaadasaan awooddaad sheeganaysaan imiga hadda iga badbaada